wafdi heer sare oo ka socda dowladda Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Puntland, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka warfaafinta, gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Puntland iyo xubno ka mid ah ganacsatada waaweyn ee reer Puntland ayaa la filayaa inay xariga ka jaraan kastam cusub oo xagga canshuuraha oo laga hirgelin doono xuduudda Puntland ay la wadaagto dhulka Itoobiya. wafdigan oo xalay saqdi dhexe ka ambabaxay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa gaaray deegaanka Goldogob halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay, waxaana la filayaa in ay gaaraan deegaanka Tuurdibi oo ku taal xuduudda labada dhinac halkaas oo laga furi doono kastamka. dhismaha kastamkan ayaa qayb ka ah heshiisyo dhexmaray dowladda Puntland iyo dowladda Itoobiya, waxayna Puntland sheegtay inuu qorshahan kor u qaadi doono xiriirka xagga ganacsiga, midka ammaan iyo midka siyaasadeed ee ka dhaxeeya labada dal. Cabdiqani Bardacad, Puntland TV, Garowe.